kusoo dhawaada daawado halkaan naga daawanaysaan waa Somali Media Action. Hadday tahay marka kugu soo horeyso soo booqato channelkan Somali Media Action, fadlan walaal subscribe-ka naga ilaawin. Barnaamijka maanta idin hayna waxaa waaye actor dalka Hindiya ka soo jeeda oo noloshiisa galaafsaday. Actor aad u daayar ee dalka Hindiya ka soo jeeda ayaa isdilay isbuucan gudihiisa. Saxaafadda dalka Hindiya iyo jaraa'idada TV-yada ayaa tabintiisa weli wadaan. La yaab ayay ku noqotay markuu actor-ka Sushant Singh Rajput uu nolosha isdhaafiyay. Maahan actor-kii ugu horreeyay oo dalka Hindiya ka soo jeeda oo gacantiisa isku dila. Sushant ayaa laga kor qaaday sariirtiisa xilliga subaxii dalka Hindiya. Booliiska dalka Hindiya qaasatan xaafadda Bandara oo isku dilay ayaa baaris ka socota. Walaashiis iyo askariga qabay oo halkaas imaaday waxay sheegeen Sushant inuu asiga isdilay. hase ahaatee booliiska ayaa weli baarid ku haya. Maxaad ka taqaanaa Sushant? Waxaan rabaa dadweynaha i daawanaa inaan Sushant aan taariikhdiisa u warramo. Sushant waa actor ka soo jeeda dalka Hindiya, qaasatan wuxuu ka yimid Rajasthan, saxaraha Rajasthan ayuu ka soo galay Baluudka. Heerkiisa waxbarasho markuu soo dhammaystay dhanka Mumbai ayuu soo aaday si uu jaamacad ugu bilaabo. Waxa uuna halkaa ka galay kulliyadda engineering muddo 3 sano ayuuna ku qaatay. Kadib wuxuu sameeyay jaamacaddii ayuu halkaasi ku hakiyay, wuxuuna dhankaa iyo u boqolay inuu filimada jila. Sushant muusan haysan wax ku caawiya dhanka filimada, maadaama markii Baluudka la galay loo baahan yahay qofku garab qabta. Sushant ayaa isku soo bandhigay shirkadda Baji Films ee Actor Kapoor hogaamiso, taasoo u qabatay dhalinyarta dalka Hindiya u soo baxaya dhanka musalsalada. hase ahaatee musalsalkiisa ugu horreeyay Disha Minha Meri ayuu halkaasi ku soo bandhigay. musalsalkaas oo faalo fiican dadweynaha ay kala dhaceen faaladiisa, wuxuuna soo baxay musalsalkaasi 2008 ayaa la daawaday. halka Sushant muusan ku hirgelin musalsalkiisii Biftak Rishtak filim waa musalsal aad looga helay, kaasoo soo baxay 2009 ilaa 2011 ayaa la daawaday musalsalkaasi, wuxuuna ku hantay bilado aad iyo aad u tiro badan. musalsalkaas kadib actor-rada dalka Hindiya iyo director-rada ayaa ka helay wiilkan quruxda badan oo soo jiidasho leh, dansigana ku caan baxay. wuxuuna markaas kadib ka qayb galay barnaamij Dialogue Teja la yiraahdo oo TV-da ka baxo dansiga ah, reality show ah. halkaas ayuuna ku soo bandhigay xirfadiisa dansiga. aad ayaa dadka director-rada ugu heleen. filimkiisa ugu horreeyay ayaa loo dhiibay Bakuji, filimka ugu horreeyay oo jiro waaye. Abhijit Kapoor iyo waxaa oo director ka ahay. dhanka kale waxaa jiniilka ku jiray Raj Kumar Rao iyo Samit oo la jilaayay. filimkaas ayaa noqday Samit. filimkiisa xiga oo keenay ayaa ahay filimkii uu asiga uu doorka caawinta ku muuqanay 2014 kaasoo BK iyo Anushka Sharma ay keeneen. hase ahaatee filimkaas ayaa noqday blockbuster, waana filim aad loogu bartay ninkan Sushant. filimkiisa xiga uu asiga uu keenay uu asigana hogaamiye ka ahay ayaa ahay Rabta. hase ahaatee filimkaasi wax guul saas u weyn muusan soo hooynin. filimkii uu ku soo rogaal celiyay waa filimkii taariikhda looga hadlayay ninka cricketka caanka ah ku caan baxay ee dalka Hindiya Yuta ee filimkii Macedoni, kaasoo blockbuster aad u weyn u noqday. Sushant oo rogaal celintiisana aad ugu farxay filimkaas maadaama box office-ka uu 104 karoor kor u dhaafay. Sushant oo guushaas wata ayaa markale filim Sara Ali Khan lagu soo caan bixinayay keenay oo Taekwondo la yiraahdo. saatee filimkaas muusan guuleysan. wuxuu kaloo keenay filimaan aad u tiro badan. isku soo duduub labadii filim ugu dambeysay oo ninkan keenay ayaa ahay Jori Jori oo Sharda Kapoor ay la jilaysay. saatee filimkan ayaa guul aad u weyn soo hooyay asoo 145 karoor kor u dhaafay. filimkii xigay oo asiga duubay ayaa ahaa filimkiisa ugu dambeeyay ee Dilip Jori, kaasoo weli aan shaashadaha dalka Hindiya ka soo muuqan. filimkan ayay sheegtay shirkadda Bollywoodka ee dalka Hindiya inay si online ahaan u soo deyn doonto. filimkan weli ma la daawanin. hase ahaatee Sushant Singh Rajput ma noola oo noloshuu isdhaafiyay.
asbaabaha keenay inuu ninkan isdilo waxaa lagu sheegay depression dhanka maskaxda ku furmay kadib hooyadiis oo 2002 geeriyootay asoo 16 sano jira kadib murugadii uu ka qaaday. waxaa la sheegay Sushanta inay arintaas kali nololnimada inay dhibaato xoogan dhanka maskaxda ku keentay. Sushanta geeridiis oo dalka Hindiya aad looga naxo waxaa ka hadlay actor aad u tiro badan. waxaa aad iyo aad arintaas si kulul uga hadlay Akshay Kumar oo dhanka jiliinka faasheetanka looga haray. Akshay ayaa yiri waana u soo jeeday dhalinyarta dalka Hindiya u soo baxaysa. marka Akshay ayaa yiri waa mararka qaar waa macquul qof inuu noloshiisa saafiyo hase ahaatee problemka dunida jooga wuxuu leeyahay xal. waa run problem wuu imaan karaa laakiin problemkaas wuxuu leeyahay xal. ma aha micnaheedu had iyo jeer qofka dhalinyarta inay isdilaan waana nacasnimo. ficilkaasi ma aha Sushanta ninka ugu horeeyay oo nolosha isdhaafiyay ayuu ku yiri Akshay Kumar. waxaa sidoo kale ka hadlay Anil Kapoor oo actor 7-meedkii filimada dalka Hindiya looga dambeeyay. Anil ayaa ku dhaliilay dhalinyarta Hindiya inaysan had iyo jeer noloshooda isdhaafiyaan markay filmadooda flop noqdaan ama problem dhanka family uu soo wajaho. wuxuuna dhalinyarta kula dardaarmay inay problemkooda dadka ugu dhow ay la wadaagaan sidii xal loogu helo. ma aha ninka Anil Kapoor kaliya kama hadlinay waxaa ka hadlay wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa sheegay Sushanta dilku nimashadii uu la kulmay iyo gacantiisa isku dilay inuu aad ugu xun yahay. taasna waxay noqon doontaa caqab xun ama tusaale xun dhalinyarta dalka Hindiya. wuxuuna ugu baaqay inay dhalinyarta dalka Hindiya aysan noloshooda galaafsanin. ma ahan Narendra Modi kaligiis waxaa kaloo ka hadlay Ajay Devgan oo arintan ka hadlay. Ajay Devgan ayaa dhalinyarta iyo actarada qaar ku dhaliilay markay filmadooda flop noqdaan inay nolosha isdhaafiyaan. waxaan hubaa gabar hadda zamanaankii hore filmada dalka Hindiya soo jili jirtay inay ayadan nolosheeda isdhaafisay. waan jecleen actorkan aad ayaan u rabnay hase ahaatee maanta dunida ayuu ka masaafaray. sidaas waxaa yiri Ajay Devgan. maan Ajay Devgan kaligiis amarkan ayaa qaatay wuxuuna sheegay in arintan dalka Hindiya dib loo fadhiisto xal loo raadiyo. amarkan kaligii muu ka hadlina waxaa sheekada sii dhanaanay Salman Khan oo arintan asna ka hadlay. Salman Khan oo actorada Hindiga dalka aad dhalinyarta soo baxay ee dalka Hindiya ku dayashadiisa aad u jecel yihiin ayaa sheegay dhalinyarta in loo furo seminar arintan laga wacyigeliyo. arintan ayaa dalka Hindiya ku soo laabatay maalintii sanadkii waxaa la sheegay dalka Hindiya 14,000 inay geeriyooto gacantooda isdhaafiyaan. waxaana arinta badanaa lagu sheegay problem dhanka depressionka maskaxda oo ku keenay inay noloshooda isdhaafiyaan. arinta dhacday waa mid aad u xun ee dalka Hindiya ka dhacday. Sushanta Sanjay Rajput wuxuu ahaa wiil dhalinyaro oo 34 sano jir ah oo nolosha u ifeysay. hase ahaatee Sushanta asaa noloshiisa isdhaafiyay. ma aha ninka ugu horeeyay oo dalka Hindiya ka soo jeedo actor ah oo nolosha isdhaafiya balse waxaa jira actoro badan oo zamana hore ee noloshooda isdhaafiyeen. actorada dalka Hindiya oo dhimanay ayaa soo badanay. Irfan Khan wuxuu ahaa actorkii ugu dambeeyay oo caadi u dhinta. Mr. Irfan iyo actor ka horeeyay ayaa dalka Hindiya ka baxay. hase ahaatee Sushanta wuxuu ahaa ninkii ugu dambeeyay actor ah ee dalka Hindiya faarujiya. Sushanta arintiisa ayaa weli social media haysata ayadoo sawirkii sariirtiisa kor jiifay oo asoo isdilay xarig iska leelmiine laga saaray social media taasoo cidi sawirkaas soo dhigtana weerar culus uu la kulmaayay. Sushanta walaashiis ayaa magaalada Bandara imaaday siday u fiirisay walaalkeed geerida ku timid inkastoo ka fogeed. Sushanta waxaa la sheegay intuusan dhiman ka hor inuu 3 qof telefoon ka wacay hase ahaatee wax u jawaabo uu waayay. waxaa kaloo hadda saxaafadda dalka Hindiya soo warinayo wiil Bandara degan oo Sushanta aad u taageeri jiray inuu asigana isdilay. waa la yaab. Sushanta Sanjay Rajput waa nin dhalinyaro oo dhanka musalsalada aad loogu jeclaay oo dhanka filmadana ku fiicnaay. halkaad naga daawanayseen waa Somali Media Action. aniga oo barnaamijka iin soo jeediyana waa Mr. AC. hadday tahay markii kugu horeyso soo booqato Somali Media Action fadlan walaal subscribe ka naga ilaawi mahadsanidin.